waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka aad daawad doontaan waxaa kamid ah xogo kala duwan oo ka soo baxaya sababta baajisay safarkii madaxweyne Xasan Sheikh uu ku tagi lahaa Nairobi wadahadalo u dhaxeeya xubno ka socday dowladda federaalka iyo danina waxa uu ka qabsoomay Garowe iyo kulamo ka dhan lafta gareen oo si dardar uga soconaya gudaha dalka qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubal News fadlan daawada adaad ku cusubtahay janalkan ku soo biro kamid noqo saaxiibadeela wararka joogtada ah in halkan ku baahinaa aragtidiina halka oo noogu reeba muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim aadna ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka baaqsaday shalay socdaal uu ku tagi lahaa magaalada Nairobi manacada sababta baajisay safarkan iyadoo villa Soomaaliya aysan ilaa iyo haatan ka hadlin sida wararku sheegayaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku sugnaa xarunta tababarka ciidanka gaarka ah ee Kamanga halkaas oo uu kulankiisii ugu dambeeyay kula qaatay saraakiisha iyo askarta ku sugneed goobtaas ka hor doorashada bisha soo socotay ee dalkaasi ka dhacaysa wararka ayaana intaasi ku daraya in saacadaha hore ee maanta uu madaxtooyada Kenya uu ku qaabili doono Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Guinea-Bissau oo isagu shalay gaaray magaalada Nairobi lama oga xilliga uu madaxweyne Xasan Sheikh tagi doono dalka Kenya waxaase jira warar sheegaya in laga yaabo in toddobaadka soo socda uu dolo Nairobi halkaas uu heshiisyo kula sii gali doono Uhuru Kenyatta arimaha laga hadlayana waxaa qayb ka ah arinta qaadka Kenya oo labadii sano ee la soo dhaafay waxaan imnaa amarka madaxweynihii hore ee Farmaajo balse lama hubo inuu socdaalkaasi hirgali doono toddobaadka soo socda gudihiisa xogaha hoose uu helayo Hubalna waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu kansalay socdaalka gudaha dalka Kenya uu ku aadayay sababa ugu weyn ay qayb ka tahay kadib markii uu ka war helay shalay inuusan garoonka diyaaradaha Nairobi ku soo dhaweynaynin dhigiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta Kenya ayaa iyadoo codsatay safarka madaxweynaha balse waxaa la sheegay in si ka duwan waxyaabihii laga filayay ee doonayeen inay ku dhaqmaan madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qorshihiisu ahaa in muddo hal maalmood uu joogo Nairobi kadibna uga sii gudbo dalalka Ethiopia iyo Djibouti uu socdaal ku kala tagi doono socdaalkiisa Djibouti ayaana ku khotoma arin la xiriira wadahadaladii heshiiska Soomaaliya iyo Eritrea dhaxmaray maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uu si weyn uga soo horjeedo in Soomaaliya ay garab istaagto Eritrea socdaalkiisa Ethiopia waxa uu inta badan ku biyo shubanaya dhaqdhaqaaqyada ee wada xukuumadda Abiy Ahmed maadaama ay maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan Addis Ababa kula qaadanayeen mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Saciid Cabdullaahi Dani kuwaas oo qorsheynayaan inay mucaarad ku noqdaan dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud dhinaca kalena wadahadalo u dhaxeeyay xubno ka socday dowladda federaalka iyo Dani ayaa ka qabsoomay magaalada Garowe magaalada Garowe oo ah caasimada gobolka Nugaal ayaa waxa xalay ka qabsoomay shir gaar ah oo u dhaxeeya xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna ergeyga gaarka ah arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno kale oo mas'uulkaasi ku weelinaya socdaalka uu ku jooga Garowe iyo Saciid Cabdullaahi Dani kulankan gaarka ah ee Dani iyo Cabdiraxmaan ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah waxaana uu kulankan qabsoomay kadib shirweyne Garowe xalay laga daafuray oo looga hadlayay arrimaha abaaraha waxaa la sheegay in labadan mas'uul arrimo dhowr ah isla soo hadal qaadeen intii kulankan gaarka ah ay ku lahaayeen magaalada Garowe inkastoo intiisa badan diiradda lagu saaray arinta abaaraha dalka ka jirta iyo gaar ahaan deegaanada maamulka Puntland iyo sidii dowladda Soomaaliya uga qayb qaadan lahayd wax ka qabashada arinkaas ayaa haddana xogaha hoose oo uu helayo Hubal News waxa ay tilmaamayaan in la isla soo hadal qaado dhacdadii dhawaan ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso taa oo ay Puntland ku hor istaagtay diyaarad gargaar wada oo ka socota dhanka dowladda hogaaminaysana xildhibaan Saacidi Yaasiin Xaaji Samatar ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo waqtigaasna ahayd kusimaha madaxweynaha dalka Dani oo isagu shalay dib ugu soo laabtay Garowe ayaana isagii Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa la sheegay in arinkaasi si weyn u faaqideen waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan in Cabdiraxmaan uu waday fariin ka socotay dhanka madaxda ugu sareysa dowladda sida madaxweyne Xasan Sheikh iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre inkastoo aan la xaqiijin karin in wadahadaladaasi isfaham uu ka soo baxay iyo sidii maamulka Puntland qayb uga noqon lahaa wada shaqeynta dowladda federaalka haddana qorshaha ugu weyn ee dhanka gurmadka abaaraha ayaa la tilmaamayaa inay isla afgarteen labada dhinac
Saciid Cabdullaahi Dani oo si weyn kaga carooday doorashadii looga adkaaday Soomaaliya ayaa sidoo kale ka xumaaday markii uu waayay xilka ra'iisul wasaaraha dalka isla markaasna sidoo kale uu u waayay qof ka soo jeeda Puntland waxaana arrimahaas oo idil ay keeneen inuu bilaabo dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda uu hogaamin doono Dani ayaana qaaday tallaabooyin muujinaya mucaaradnimada dowladda Xasan Sheekh waxaana ugu dambeeyay tallaabadii lagu hor istaagay gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka Saacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo gargaar doonaysa inay ka dejiso magaalada Boosaaso Saacdiye ayaa kol hore diyaarad gargaar wada waxa ay geysay magaalada Garowe mana jirin wax dhibaato oo ay la kulantay balse dad badan ayaa su'aal ka keenay sababta loo diiday inay gargaar ka dejiso magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari tallaabada Saacdiye lagu hor istaagay ayaana xiisad siyaasadeed ka dhex abuurtay Puntland gudaheeda waxaana jira inay ku kala qaybsameen siyaasiyiinta maamulkaas iyo ismada kuwaas oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay dhacdadii dhacday Cabdiraxmaan Faroole iyo Gaas oo madaxweynayaal ka soo noqdeen Puntland waxa ay la safteen Dani eedo ugu weyn waxa ay dusha ka saareen xildhibaan Saacdiye balse ismada maamulka Puntland Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo xubno kale ayaa iyaguna taageereen xildhibaan Saacdiye oo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka kana mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanada maamulka Puntland waa hagaagay daawadayaal weliina waxaad nagala socotaan janaalka Hubaal News fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada helo wararka aan halkan ku baahinay bal iminka aan eegno kulamo ka dhan ah lafta gareen ayaa si dardar uga soconaya gudaha dalka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya saacadii aanu ka soo gudubnay waxaa si weyn looga dareemayay kulamo isdaba joog ah oo ka dhan ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku yeelanayeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka inkastoo kulamadan ay Muqdisho kaliya ku koobneen haddana waxaa la tilmaamaya in xoogiisa uu ka soconayo gudaha dalka siyaasiyiintan oo qaarkoodba la magac baxeen samata bixinta Koonfur Galbeed iyo waliba badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa wadaan oo kulamo ka dhan ah Cabdicasiis lafta gareen gaar ahaan kulamo ay uga tashanayaan doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulamadii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka soo dhex muuqday Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muude oo soo ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka isla markaasna kursigiisa xildhibaanimo ee uu baraawa ka doonan lahaa lafta gareen uu ka hor istaagay Muude ayaa la sheegay haatan inuu ku biiray xubnaha wada abaabulka ka dhana sidii madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed loo dhaafsiin lahaa lafta gareen isla markaasna doorashada maamulkaas waqtigeeda uga qabsoomi lahayd magaalada Beerdhabo oo ah xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale siyaasiyiinta waaweyn ee kulamada ka wada Muqdisho iyo qayb ka mid ah dalalka caalamka sida dalka Kenya ayaa waxaa qayb ka ah madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyaha golaha shacabka ee haatan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo xubno kale kuwaas oo si dardar ah ku wada kulamada abaabulka ka dhanka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lafta gareen ayaa ku adkeysanaya in waqtiga maamulka Koonfur Galbeed ee xilheentiisa aysan dhaweyn balse xubnahan ayaa ku doodaya in doorashada maamulka Koonfur Galbeed waqtigii lagu qaban jiray lagu qabtay isla markaasna xilheenta lafta gareen ee ka harsan tahay bilooyin kooban lafta gareen ayaa qorsheynaya in isaga iyo xildhibaanada maamulka Koonfur Galbeed uu waqtigoodu hal mar wada dhaco balse maamulkaas nidaamkii hore ayaa waxa uu ahaa jiray xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waqtigoodu uu hal sano ka dambeyn jiray doorashada madaxtinimada maamulkaasi inkastoo waqtiga kordhinta xilheenta Cabdicasiis lafta gareen ee meel mariyeen baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa haddana waxaan la ogeyn sida uu ku dhaqan gali karo arrinkaasi maadaama siyaasiyiintu ay si weyn u dhaliilayaan isla markaasna ay jiraan xildhibaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka soo goosanaya dhanka lafta gareen bari ugu dambeeyna dhankooda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wadeen gudaha magaalada Muqdisho Cabdicasiis lafta gareen ayaana dhankiisa dagaal adag oo kula jira xildhibaanadaasi oo uu ka jartay mushaaraadkii qaarkoodna looga yeeray xeer ilaalinta Koonfur Galbeed inkastoo ay sharci daro ku tilmaameen jiritaanka xeer ilaaliyaha maamulka Koonfur Galbeed oo ay sheegeen inuusan sharci ahayn maadaama la horgeynba baarlamaanka xaaladda maamulka Koonfur Galbeed ayaa marba marka ka dambeysa ka sii dareysa waxaana la saadaalin karin halka xaalka maamulkaas uu ku dambeyn doono
waa howl culus oo hortaala dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh. Lama oga sida uu madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku wajihi doono arrinta koonfur galbeed. Inta badan dhibaatooyin adag ayay madaxda dowladda Soomaaliya kala kulmaan dowlad goboleedyada dalka. Xaalintooda waqti adag ayay ku qaadataa, waxayna taasi soo dedejisaaba waxayba taasi keentaa inta lagu mashquulsan yahay dowlad goboleedyada inuu dhamaado waqtiga madaxda xilxeynta dowladda federaalka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warkii oo aad kala socoteen channelka Hubaal News fadlan daawade haddaad ku cusubtahay channelkan kusoo biro ka mid noqo saaxiibadayla wararka joogtada aan halkan ku baahin aragtidiina halka hoose noogu reeba muuqaalkan la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim waana ku mahadsantihiin daawashadii la socodka warka channelka Hubaal News.